Waan ogeyn inaan kubadda difaaca karin. Mohamed Salah oo weeraray mid ka mid ah kooxda kubadda cagta Liverpool xidigaheeda ugu muhiimsan. Warbixintan ayaan saaxiibayaal idinkugu soo gudbin doonaa soo dhawaada. Xidiga Liverpool ee Mohamed Salah ayaa ka hadlay cayaaraanta loo jeedinayo difaaca kooxdiisa Trent Alexander-Arnold oo saluug badan laga muujiyay hanaankiisa difaaceed, taasoo keentay in Jurgen Klopp uu bedelo booska laacibkan ee qayb ciyaareedka naadiga si uu laacibkan u geeyo khadka dhexe wax weerara. Alexander-Arnold oo 272 ciyaar u saftay kooxda kubadda cagta Liverpool oo u dhaliyay 16 gool sidoo kalena caawiye ka noqotay 71 kale, ayaa markaas saaxiibadiisa naadiga dhaliilay qaabka wax u difaaco, iyadoo mar walba su'aal laga keenayay qaab difaaciisa aadka u liidata. Mohamed Salah oo wax laga weydiiyay 24 jirkaan oo lagu riixayo khadka dhexe ayaa ka jawaabay, "Aniguba hadda ayaan markaas xaqiiqsan inaan kubadda difaaca karin, kaliya waan kaftamayaa. Waa ciyaartoy run ahaantii xirfad leh. Mar walba waxaan wada sameynaa jimicsiga jirka iyo tababarka. Waxaan markaas ku idhaahdaa, haddii aad doonayso inaad la hadasho, kaliya ii kaalay." Waxaan hubaa in Jordan Henderson iyo ciyaartoyda Klopp ay sidaas isaga isku yihiin. Si kastaba ha ahaatee, Alexander-Arnold ayaa intuu Jurgen Klopp markaasi bedelay booskiisa labadii bilood ee ugu dambeeyay wuxuu caawiyay 6 gool iyo 1 gool oo dhaliyay 9 ciyaarood gudahood. Wiilkan reer England inta badan difaaciisa aadka loo dhaliilo ee Trent Alexander-Arnold ayaa ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta Liverpool tan iyo imaanshihii macalinka reer Jarmalka Jurgen Klopp, waxaana la xasuustaa in ninkan uu goolal badan ka qayb qaatay. Waa xidig markaas 24 sano jir ah oo u dhashay waddanka Ingiriiska. Ku xasuuso goolkii cajiibka ah uu ku caawiyay kooxda kubadda cagta Barcelona sanadii 2019 markaas oo kubad cajiib ah lugta uu ka saaray wiilka la yiraahdo David Origi. Inkastoo Reds ay qaateen xilli ciyaareed aad u xun, haddana wuxuu ka mid ahaa xidigaha dhaliisha gaarka loo jeedinayay tan iyo markii uu bilaabay xilli ciyaareedkan, iyadoo kubado badan oo dhinaciisa laga keenay laga dhaliyay kooxda kubadda cagta Liverpool, taasoo keentay in xitaa ay isku dhacaan qaar ka mid ah xidigaha daafaca naadiga sida ciyaaryahanka Virgil van Dijk oo dhowr jeer ninkan u jeediyay inuu banneeyo booskiisa, isla markaasna ay tahay inuu booskiisa oo kaliya u joogo halkii wax weerari lahaa ama uu kubadda abuuri lahaa. Naadiga Liverpool oo aan u soo bixin tartanka UEFA Champions League ayaa laga yaabaa in beddelka wiilkan difaaca ay u keensatay xidig kale oo bedeli kara halka isagana khadka dhexe loo wareejinayo, maadaama uu ku fiican yahay kubadaha six-pace ah ama kubadaha crossyada oo lagu xiro xidigaha weerarka ee afka hore jooga. Waxaa markaa intaa u dheer inuu yahay xidig aragti dheer ama marka uu haysto kubadaha laadka xorta ah aan loo dhawaa karinin. Haddaba miyay kula tahay in Trent Alexander-Arnold laga bedelayo booska difaaca isla markaasna loo geynayo khadka dhexe wax weerara? Qaybta hoose ee kommentiga aragtida nagula wadaag. Haddii aad nala joogto dhamaadkana waad mahadsantahay.